xisbiga mucaaradka ee wadani oo galay maalintiisii afraad ololaha loogu diyaar garoobay doorashada madaxtooyada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa xolo gudoonsiiyay cisbitaalka dhimirka ee magaalada Berbera iyo jeelka weyn goobtii ay xolaha ku wareejinayeen ayaa waxa ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ee heer gobol waxaana yiraahdeen biyaha aan ugu talagalnay Burcasheekh in lagu waraabiyo Jaamalaaye waraabowtaaga Finland all waxa soo dhan biyo la'aanta ka taagan markaan aragnay ayuu iyagu waxa sameynaya wakaalada waxaan leenahay hadaad wax tarayso wakaaladii hadaad biyo dadka u hayso uge biyo hadii aan biyo u haynin biyaha aan u dhaaminayno haysor taagin biyaha aan u dhaaminayno la soo taagay dadka ha u dhaamin way dadka biyaha siinin ayaa la taagiyay harmadaan way macnaheedu booyadihi baa la hor taagan yahay booyadihi aan anagu soo kireysana leeyahay $3,000 qaado ha u dhaaminin warkooda ha maqlin maamulka waa sidaas way annaga wadani ahaan waxaan kari karina iyo sadaqaan idin keenay isbitaalka sadaqaan u keenay jeelkana sadaqaan u keenay waxooga biyayo waxa iyo inta yar xoolo abaanu keenay intaas waxa way la yakulif ilaa nafsan ilaa wus'aha mooyaani wax kale ma jiraan waxaan janay naga gudoona idin waan idin ducaynayna ducana waa idin ku darayna inaanu sadaqad bixino wargoormay sadaqada ceeb noqotay dacaayad noqotay in la isku dacaadeeyo wax la isku caayo xisbigii kulmiye wuxuu ayaamahan la taagnaa inuu ku dacaadeeyo xisbiga wadani wuxuu isagu tahli waayay oo uu qaban kari waayay inuu ku dacaadeeyo oo ku caayo asxaabta kale ee iyadu samaysay inay waxan qabato waxaan maanta ka cabanaynaa aan leenahay gobolka saaxil booyadihii aanu xalay ballansanay oo biyihii intii kulmiye lagu soo qoray banaanbaxa iyagoon lahayn xaafadaha iyagu lagu shubayo waxaan leenahay horta waa maasintii haddana naga dayatayna maalin walba biyahaanu helno ayaanu leenahay idinkoo xukuumaddiiya maalin kasta biyaha yaanaan idinka waayin annagoo maalinteedii aanu bixinaynay aad ugu qabsateen oo aanu ugu talagalay dadka jeelka ku xidhan iyo shaqaalahaaga iyo ciidanka inay maraq yar ka dhigtaan oo xisbiga wadani ugu soo deeqay iyo 15 kiiso biyo ah inta naga gudoon haweenka xisbiga wadani aad iyo aad bay salaamantihiin madax ahaan iyo mijahan baad iyo aad bay soo dhaweynaa hada walaalihiina xanuunsanayay maskaxda ka xanuunsanayay soo booqateen maanta garateen wax u geeysan aad iyo aad bay mahadsantihiin ilaahayna idinka jaaysiyo dadkan waa dadkii baahnaa wadadkii u baahnaa in la caawiyo wadadkii u baahnaa in wax la tiro weeyaan عبد الرشيد مبارك عبد الرشيد سول تلفزيون عالمي الصومالي كيبل مقالة بربراء